duqeyn xoogan oo lagu laayay xubno ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wararkii ugu dambeeyay duqeyntan halka ay ka dhacday iyo kooxda halka ay isku aruursanayeen ee lagula beegsaday ayaa sidoo kale idin la wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalkan laagsaar sina sheergaray naguna soo biir mahadsanid wararkaan ka helayna gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Guulane oo ka tirsan gobolkaasi ayaa wararku waxay sheegayaan in hadda halkaasi ay ka dhacday duqeyn xoogan oo ay fuliyeen ciidamada cirka ee dowladda federaalka Soomaaliya. duqeyntan ayaa sida la sheegay waxaa lala beegsaday goob ay isku aruursanayeen kooxda argagixisada al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay deegaankaasi ku sugneed. sidoo kale xogaha ayaa waxay intaas ku darayaan in gaari la duqeeyay isla markaana ay saarnaayeen xubno ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo doonayay inay weeraro gaadmaha ku qaadaan fariisimada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan gobolkaasi. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in gaariga la duqeeyay uu yahay nuuca Soomaalida ay u taqaano TM-ka isla markaasna ay saarnaayeen xubnaha ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab kuwaas oo la doonayay in loo daadgureeyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Shabeellaha Dhexe maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday guluf ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab waxaana hadda la soo wariyay in duqeyn xoogan la beegsado kooxda isla markaana halkaasi lagu gaarsiiyay jab xoogan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay duqeymo ka fulinaysay qaybo ka mid ah gobolada dalka waxaana hadda la soo xaqiijiyay in deegaanka Guulane oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe laga fuliyo duqeyn xoogan oo ay fuliyeen ciidamada cirka. deegaankan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa isku aruursanayay kooxda argagixisada al-shabaab si ay duulaan ugu qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca. duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa ilaa hadda ku socda kooxda argagixisada al-shabaab waxaana sidoo kale la xaqiijiyay horjoogihii ugu sareeyay kooxda argagixisada al-shabaab in halkaasi daawac culus uu ku soo gaaray duqeynta halkaasi ka dhacday. wixii warar ah ee ku soo kordha duqeyntan ka dhacday deegaanka Guulane ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan mahadsanidin.